danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Cali Nuur ayaa gaarsiiyay carruurta qaxootiga ah ee ku jira xerada Kakuma oo kamid ah xerooyinka ugu waaweyn ay Soomaalidu qaxootiga ku tahay deeqo ay ku jiraan dhiirigelin carruurta Soomaaliyeed loogu sameeyo si ay waxbarashadooda u sii wataan. deeqdan ayaa isugu jirtay kitaabo Quraanka Kariimka ah, buugaag, qalimaan iyo waxyaabo kale oo carruurta farxad gelinaya. waxaana uu mudane Maxamed Cali Nuur Ameerika uu deeqdaasi gacantiisa ku guddoonsiiyay carruurta qaxootiga ah ee ku jira xerada Kakuma ee dalka Kenya. safiirka oo xerada kula hadlayay telefishinka qaranka ayaa waxa uu ku tilmaamay tallaabadani mid ay doonayaan inay ku dhiirigeliyaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee xaaladda adag wax ku barta ee xerooyinka qaxootiga ku jira. waxaa kaloo halkaan maanta aan keenay buugaag iyo qalmaan iyo kitaabo Quraan oo aan idinku talagalay in idin siiyo. hadda saarkayna galaaskiina waxa weeye waa aad u badantiin miisaska way yaryihiin mataqaanaa si ay sheegeen macallimiintana dib aad u weyn ay qabtaan. insha Allah tacaala waxaan ku dadaalayaa inaan dadka Soomaaliyeed oo dowladda iyo wadamada deeqaha bixiyo inaan codsado in iskuulka la weyneeyo, in kalaataasi la badiyo, in miisas badan la keeno, buug fiican la keeno si ay idinku wax bartaan. marka waxaan rabi lahaa 2 ama 3 qofood oo ii sheegta dhibkay qabtiin iyo waxa u baahantiin. buugaagta buug la'aan iyo macallimiinta aad iyo u jira waxaan rabnaa in kursiga muddo oo loo doono istifaa fudiyanayna faraqan leena dalka raawada si fiican u yahay ay barfaysa taas ka dhigta faraxsanahay waa soo dhaweynayna marka hore ardayda walaalaheen bulsha ee noo keeneen annagana waxaa jeceyga district ee noo galeen kaalinta koowaad. annaga waxaa jecelnahay district inaan ka bilaabno oo county ku xijino, sidaasaan jecelnahay. targetkeenana waxaa waay 308, ayagana targetkooda wuxuu ahay 304.21. waxaan u baahannahay buugaag, sidoo kale waxaan u baahannahay in galabkii casharada iskuulka noola kordhiyo. sidoo macallinkeena heermasaa noo sheegay aad iyo aad u mahadsantiin. horta waan isoo dhaweynaynaa sidaad nooga maadeen. sidaad maqasheen lockdown waa iskuulka ugu horeeya oo number 1 ku jira districtka. anagana sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaan siday sameyn ka badan aan sameyno. soo haddana heermasteena sidoo noo sheegay aftan galaas ayaa la dhiganayaa. soo dhibka ugu weyn oo jira waxay tahay buugta buug fiican oo revision books oo aan haysan oo buug fiican aan rabno in nagula caawiyo. iyo midda kalena waxay tahay xagga raashinka because subax waxaa la kariyaa boorka ayaa la kariyaa. ilmaha mostly waxaan ka wada imaanaa meelo dhaadheer ee iskuulka u imaanaa oo ka fog. haddana duhurka qada in loo laabta ay noqonaysaa. qadada marka loo laabto dhibka weyn wuxuu yahay qadada intaas soo cunaysa imtixaanka iskuma qiimo oo iskuulka laga rabo. marka in aftan sidoo kale ayadana oo xagga raashinka nagala caawiyo magacaygu waxaa la yidhahdaa Cumar Mooyaan Beero. waxaan ahay overall Somali community oo Kakuma. hidaayada ama giftiga uu noo keenay our excellency oo safiirkeena Soomaaliyeed Axmed Cali waa guddoonay. Maxamed Cali waa guddoonay si oo farxada waxa weeye inkastoo oo iskuulkana waxaa la yidhahdaa Lokitaan waa iskuul aad u badan Soomaalida majority waxa weeye waa ayaga majority waa Soomaali. waana iskuul aad u waxaysan oo aad u macnaa dadka meesha jooga ama dhalinyarada meesha macnaa joogaan wax ka akhristaan aad waxay yihiin macnaha waa aad buu liitaan. aad ugu mahad celinayna safiirkeena oo wanaagsan. marka ugu horeysa waxaan mahad buuxda u celinaynaa dowladda Kenya, marka ku xigtana UNHCR iyo hay'adaha gacanta lagu hayo. inta haddii la soo dhaafo maanta waxaa farxad noo ah ama aan ku mahadinaynaa safiirkeena noo yimid sida sharafta iyo sumcadda noogu imaaday si uu ogaado dhibaatada kaamka taalla, carruurta, dadka waaweyn, maatada, wax walba si uu la socdo. kadibna haddii alla uu saamaxo uu wax u qaban doono dadkaas maadaama uu dhiisa ku soo arkay marka uu ku laabto meeshii xafiiska uu ka imaaday. intaa kadib annaga waxaan u baahannahay waxyaalo badan oo halkan lagu soo koobi karin. waxaase ugu muhiimsan hadda waxbarashada. dadka waaweyn iyo curyaaminta wixii da'dayna hore soo qaadan waa qaadan, laakiin ciyaalkeena hadda soo koraya waxbarashada waxaan u qabnaa qalab waxbarashada hormarka
ma haysano sababtoo ah budgetka adduunka oo hoos u socdo wax walba hoos bay u dhacayaan marka waxaan u baahanahay adkaaga in la saaro horta waxbarashada wax walba ama shilin walba naloo helo waxbarashada naloogu sameeyo dhinaca kale safiirka ayaa intii uu xeradaasi ku sugnaa waxa uu kulamo la qaatay waxgaradka iyo horjoogayaasha xerooyinka qaxootiga ee Kakuma ku yaala isagoo ugu baaqay inay dawladda Kenya iyo laamaha amaankaba kala shaqeeyaan sugidda ammaanka waxaa kaloo ambassador Maxamed Cali Nuur uu la kulmay saraakiisha ammaanka Kenyaanka ah ee xerada ammaankeeda qaabilsan oo uu kula dardaarmay in ay u turaan una dhibriyaan shacbiga Soomaaliyeed ee xerooyinkaasi ku dhaqan Maxamed Axmed Ilka Case telefishinka qaranka Nairobi